waxaan ku soo dhaweynayaa maxamed ismaaciil inuu loo furo ciyaarta maxamed ismaaciil oo doonaysaa waleysan oo kalaada on the floor, there she go, doing a thing. Let's step out of the club. Francisco, what you done to me? It's as simple as you saying hello. Cause a lot of confusion got dudes fighting just to know your name. I'm gonna make them look stupid just by letting me buy you a drink. And we can make them all lose it if you dip out of the club with me. You dip out of the club with me. It's as simple as you say it. Let's go. Going on, dancing to a favorite song. Tight jeans hugging on, that body she showing on. Oh damn, there she go, doing a thing on the floor. On the floor, there she go, doing a thing. Break it down and do it, do it, do it, do it, do it, do it. Put your back and do it, do it, do it, do it, do it, do it. Break it down and do it, do it, do it, do it, do it, do it. On the floor, there she go, doing a thing. Let's step out of the club. Step out of the club with me. Let's step out of the club. On the floor, there she go, doing a thing. How you feeling, my lady? Getting tipsy, drinking what you like. You make another go crazy if he ain't got you right by your side. And you can make him go lazy without you. Don't have to settle for. Without you, don't have to settle for. Settle for someone that ain't fly like you. I ain't nobody without you. I'd be feeling the same. And I really wanna get started touching you all up and everywhere. Girl, I really love what you do. Without you, I'd have to settle for. Abdi J from Zurich, Switzerland. tiimkiina ciyaaraha maanta ciyaarteen wax guula ma ka soo yeesheen hal bareejo iyo labo nala ka badiyay laakiin ciyaaro badanna way noo dhiman yihiin. Van deze toernooi wat Heerde heeft georganiseerd? Ik vind het een goed initiatief. Ik vind het altijd wel leuk als Somalische mensen bij elkaar komen om elkaar beter te leren kennen. En ja, voetbal is een familiesport, zeg maar. Ik zie hier zeg maar alle leeftijdsgenoten, zeg maar, mensen van oude leeftijd, van jonge leeftijd. En ja, ik vind het een goed initiatief. Ik zie elk jaar weer nieuwe mensen en dat is goed. En maken jullie kans om te winnen? Nou, als ik kijk op basis van vandaag, denk ik dat wij kanshebbers zijn. Maar wie weet hoe maandag verloopt. Misschien hebben wij een slechte dag. The girls who ain't on TV cause they got more ass than the models. The good life, so keep it coming with the bottles. So she feel booze like she bombed at Apollo. The good life, it feel like Houston, it feel like Philly, it feel like DC, it feel like VA or the Bay or yay. Hey, this is the good life. Homie, tell me what's good. Why I only got a problem when you in the hood? Welcome to the good life. Like I'm doing the hood. The only thing I wish a nigga would. Welcome to the good life. He probably think he could, but I don't think he should. Welcome to the good life. 50 told me go ahead, switch the style up, and if they hate, then let them hate and watch the money pile up. The good life. I come from mine. Yeah, I got to shine. Now throw your hands up in the sky. laakiin dhibki jira waxay ahayd adiga lasmanka marka ka sugay gool hadii looga dhaliyo dhib baa dhib ma gool hadii looga dhaliyo mar laakiin Abdelwad Belay, ik ben 17 jaar en ik speel voor team Eindhoven. Ik vind het heel uitdagend, leuk en ja, ik zou dit wel vaker willen doen. Wat vinden jullie van deze dag? Nou, ik vind het een hele mooie dag. Goed georganiseerd, heel veel teams zijn erop afgekomen, heel veel publiek. Ja, een heel mooie dag. Ja, in de titel voor mij ook hetzelfde. Nou, ik kom bijna, volgens mij is dit het derde jaar dat ik hier ben. En elke jaar ik vind het leuk om hierbij te zijn. En het is een geweldig toernooi georganiseerd natuurlijk door Heerde. En ja, het is echt zoals je ziet, het zijn leuke teams. Zo leuke spelers uit het buitenland, jongens uit het buitenland. En Noorwegen, Engeland. En het is heel leuk om te zien. So where are you from? I am from Somalia, I come from Switzerland. What's your age? I am 21 years old. What do you think about participating in this tournament of Heerde this year? It is very nice and we have funny. We played good. It is
every year when they make it like this, it will be cool because we are from Somalia and we are from another. We are not together in Netherlands. I came from Switzerland, he came from Holland, he came from everywhere. Then we see us here as brothers and sisters, and really we have fun. Which country? UK, but we're supporting West London for today. So is this the first time you're here? Yeah, this is the first time. We're really enjoying our time in Amsterdam. It's really good, yeah. And what do you think about this tournament, which is also meant to bring Somali people all over Europe together? Yeah, it's really good. It's working. Yeah. People are getting along. There's not much fights going on, so I'll say it's a great job. And do you think you will come here next year as well? Yeah, we might do. You never know. 50, we don't know. We're not 100% sure yet. Oké, het is de man die even staat in je face. Meest gehaat in de game omdat ze niet kunnen met dit en dit. Je weet het zelf, ben een baas in de race. Waar ik sta, nummer 1, laat die mannetjes maar zitten. Je kan niet tippen, homie, want mijn skills die blijven bouwen. En het draait een volle toeren, die shit is niet bij te houden. Je kan op mij vertrouwen, wat ik spit is true. Ik ben fit, ik ben niet moe, mattie, dit is wat ik doe. Ik ben al binnen, bro, kijk hoe ik het binnen haal. Ben te ver voor je, laat je verbassen in het midden staan. Ik wil voor de finish gaan, ja de nummer 1, A-Town represent 8002. Yo, ik stop niet, ik kan me liegen. لو دي اشهر حاجه من كل العيار هي صحاها دوبن iyo raysay ama ku yimid magaalada Holland laakiin runtii laba qod goolka ayaa hadda dhashay runtii gool fiican ayaa dhashay indhooban ayaa dhashay indhooban weli waxaad moodaa inay soo noolaanayso ciyaartii way dhamaatay waxay ku dhamaatay 4 gool ay leedahay indhooban ciyaarta waxa ku guuleysay kooxda Rivage Mohamed Ali 17 jaar. Ik ben Soufiane Saïri, 24 jaar. En jullie spelen beide voor Reewijk. Is dit jullie eerste keer? Het is de tweede keer dat ik meedoe dit jaar. Voor mij is het de eerste keer dat ik dit meemaak en het is leuk. iminka waxaa wada ciyaaraya amaba ciyaartii ugu dambeysay ee semifinalka waxaa wada ciyaaraya kooxaha ka kala yimid magaalada Vlaardingen iyo magaalada Birmingham ee caasimadda labaad ee waddanka Ingiriiska ciyaartu waxay maraysaa eber iyo eber haddii kooxda Birmingham ciyaartiin waa halkaas ku dhamaatay kooxda Birmingham eber kooxda Vlaardingen waxay maraysaa iyada naftigeeda eber waa laga qabtay ciyaartii waxaa ku badiyey kooxda Birmingham En wat betekent Amsterdam voetbaltournament precies voor jou? Nou, dat betekent, voor mij betekent het belangrijkste toernooi. Als je kijkt in een land als Nederland, vind ik de belangrijkste toernooi waar dus de beste voetballers in Nederland bij elkaar komen. En hier zie je hoe ver Nederland is en wat jongens op dit moment wat voor niveau ze hebben. Dus ik vind het een goede initiatief van Hierda dat het steeds plaatsvindt. Het zaalvoetbaltoernooi Hierda 2011. Dit jaar doe ik mee met team Reewijk weer en ik heb dit jaar een paar nieuwe spelers. Vorig jaar zijn we tweede geworden en ik hoop dat ik dit jaar de beker mee naar huis kan nemen. The magic of table tennis, Megarita. Sidoo kale waxaa nasiib u yeeshay sanadkan inuu ciyaaraha furo muqdishihii kubadda cagta ee qarankeena dalka Soomaaliya Maxamed Ismaaciil. Sidoo kale sanadkani waxaa marti u ah Hierda Amsterdam Tournament kabtanka xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliyeed Ciise Aadan Abshir Ciise Dheere. kooxood ee finalka isugu soo haray sanadkani waa Reewijk iyo Birmingham. Labada kooxood kooxdii soo baxda ayaanu u rajaynaynaa inay hanato koobka sanadkan ee loogu talagalay ciyaaraha Hierda Amsterdam Tournament 2011. So much love to share. Pure blackness, oneness so rare. So much love to care. Let them know they're missing out. Mama Africa.
daawadayaal waxaa sida aad u jeedaanba iminka bilaabatay ciyaartii finalka ama kama dambaysta labada koox ee iminka ciyaaraysana waa kooxaha Birmingham oo iyadu iminka rigoor ku soo badisay kana soo badisay kooxdii Flardigan halkan waxaa idin daadihinaya aniga waa Maxamed Bashiir Midnimo labada dhinac waxaa fadhiya ciyaaryahanadii qaranka Soomaaliya waa Mr. Babuche iyo Mr. Berek laakiin haddana waxaa wata ninkii aad ka khatartu ahay ninkan waa nin aad khatar u ah 2 iyo 3 kalama yaqaan nin kubadda laga qaadi kara ma waa nin aad u farsamo badan kooxda Raisvik asaga iyo nin kale kaliya la ciyaaray labada nin oo kale ee ay la jirto Birmingham waa kubadda u toosiyaan mooyaan waxa 4 qofood labada nin ee ninkan la yiraahdo Med iyo ninkan la yiraahdo Muumin waa niman aad kubadda maaragtay aan laga qaadi karin sidii noqon doonto inay waxyar kadib isku dhici karto runtii nambarka 10aad ana Muumin u dhibay nambarka 10aad ee Birmingham Muumin u dhibay nambarka 7aad ee Maxamed Baaqi Maxamed Raba runtii walali nambar 7 Raibik nambarka 4aad Raibik ayaa gool dhaliyay runtii garoonka ka baxa ayaa lagu hayaa dadweynaha kulli garoonka soo galeen oo reer Netherlands kulli garoonka soo galeen ciyaarta bir xulay meesha gool xun oo daalanta ayaa laga dhaliyay runtii Birmingham waxaad moodaa in gool xun laga dhaliyay runtii aad iyo aad ciyaarta goolka ciyaarta waxay ku socotaa hal gool oo ay leedahay 3 gool ay leedahay Raibik 2 gool ay leedahay Birmingham haddii ciyaartan 2 daqiiqo iyo 10 second ayaa ciyaarta haddii intaas ay dhalin waayaan koob waxa qaadaysa Raibik ayaa qaadaysa أحمد علي باشا يا بنو كل عيار أنت ولين نمبر 7 نمبر 7 نمبر 6 برميهم يا لين نمبر 6 برميهم يا لين نمبر 6 برميهم يا لين نمبر 6 برميهم جول كون فينا أيوه شوت آدي حق بدن أيوه عيارت واي لماتي رجور يا لين لابو أي مس عيارته وحاطورة يا نمبر كتضباط الليبان أويس oo aad loogu yaqaan caan ku ah inuu rigoordii hore oo cunay Liibaan Aweys dadku waxay leeyihiin war Liibaan ka dhaafa rigoordii hore oo cunay Liibaan Aweys socodka inuu dhaliya laga yaabaa Liibaan Aweys wali hadda tuulaya Liibaan Aweys ciyaartu waxay maraysaa 2 gool iyo 2 gool Liibaan Aweys tuulaya ciyaarta waa soo diyaar garoobay waa soo socday waa ugu soo dhawaaday waa tuur raba soo xajisan waa laga qabtay Liibaan Aweys waa markii labaad oo rigoor laga qabtay Liibaan Aweys dadka waxaan leeyahay dadka maxay la qeylinayaan waxay leeyihiin Liibaan Aweys nasiibkiisa xure iska dhaafa waxaan sugeynaa Raibik number 16 ayaan sugeynaa ninka la yiraahdo Sufyaan ayaan sugeynaa waaw 16 Sufyaan waaw dhaliyay wuxuu leeyahay wariyaha haddii hadda islaam soo socoto ciyaartaas ilaa habeen dambe rigoor waa socon doontaa wali wadada duufa waxaa la kala dhaliyay 8 portieri waa laga qabtay portieri Raibik ayaa qabtay Birmingham waa laga qabtay portieri Raibik hadduu dhaliyay rigooradan koobka waa qaadaysa Raibik ayaa qaadaysa ciyaartii halkaas ayay ku dhamaanaysaa tournament hirdo 2011 meeshaas ayay ku dhamaanaysaa koobkii waxaa qaadan doona markaas kooxda Raibik haddii uu dhaliyo tan waa dhaliyay Raibik ayaa qaaday koobkii champion
gabalkii dhacye guurahabe guri imaa haysiine gabalkii dhacye guura